soo kale aniguna duruuf adag ayaan u soo marnay shaqo qaran anigoo xaasle ayaan xaaskayga uga tagay cidlo oo ilaahay dartii uga tagay cidaan uga tagay ma jirin waxaan uga tagay ma jirin shaqada qaranka ayaan uga tagay waa barnaamij aanu kaga cararaynay shaqada lagu helayo oday iyo suldaan iyo qabiil run ahaantii shaqada markaan soo galiyay anu waxaan kaga cararayay inaan shaqo qabiil helo oo shaqo qaran ma soo galay barnaamijka uu nagu eedeeyay waa been abuur waanu haynaa cadeynteedii waana shay cad waanu soo bandhigaynaa garnaqsi baanu diyaar u nahay kuwani waa afar arday oo hore uga tirsanaan jiray ardayda shaqo qaran balse agaasimaha barnaamijka shaqo qaran sheegay in laga saaray ardayda shaqo qaran kadib markii ay warbaahinta u sheegeen in la musuqmaasuqay imtixaankii ay ardayda shaqo qaran u galayeen shirkadda Singapore Energy waxaanay maanta warfadiyeenka u sheegeen inaanay waxba ka jirin dhaliilaha uu soo jeediyay agaasimaha barnaamijka shaqo qaran isla markaana aanay shaqo qaran soo galeen haddii aanay dalkooda jeclayn waxaanay madaxweynaha Soomaaliland u sheegeen in cadaalad darrada ka dhex jirta barnaamijka shaqo qaran sababayso inay shaqo tagaan meel aanay jeclayn oo ay shaqo ka raadsadaan iyagoo xitaa qaarkood tilmaamay in markii ay shaqo qaran tagayeen ay ka tageen xaasaskoodii iyagoon meelna waxba ugu ogeyn jacayl ay dalkooda u qabaan dartii waxaanay cadeeyeen in qarannimadii waxaanu nahay afar dhalinyaro ah oo ka mid ah barnaamijkii shaqo qaran oo uu sheegay agaasimuhu in liiskii ka saaray markii aan ka hadalnay xaqiiqo iyo cadeymo jira oo corruption jiray oo imtixaankii ka dhacay ahaa horta agaasimuhu dhowr dhaliilood buu noo soo jeediyay onsal yaraatona lahayn dharisha koobaad ay ahayd in aanu garisku hotelka qaran haadi laydha aanu wax ka sheegnay amba aflagaadeynay oo xalmarin siinay isagu xalmarin siin ma isagu maanaan aflagaadeyna hotelka qaran haadi laydha waxa la muwaadin Soomaaliland ah oo maal gashaday manaan aflagaadeyn manaan caayin laakiin waxaanu sheegnay in imtixaankii uu yiri waxa laga qaaday jaamacadda Hargeysa qayb ka mid ihi oo shaqo qaran ahayn ay ku gashay cadeynteediina taa waanu haynaa talabaad wuxuu sheegay inaanu carqaladaynay nimankii shirkadda ahaa Singapore ka yimid oo ka qadaynay hudheelka inaanu carqaladaynay horta qolada hudheelka qaran hadi iyo Singapore isku maana arag qoladan shirkadda waxaan isku aragnay kaliya jaamacadda Hargeysa markii aanu joognay qaran hadigu leeyahay ku carqaladaysan horta maanaan arag maanaanu isku aragna isku maanaan soo gaarin حتى هل ويترسمنا أفضافين وإحنا اسمنا ودي تحان كانوا تجني وانصار أرجني وانصار حقيقي وانصار نقولني أنت صحيح قلنا الشركة دلفت ده وحولوا هذا السن أو واحد كوي هذا السن بوري مصماص وجا كرشون قرت مصماص وشركة ميودين منعنا إنه في لجادين شركة كلية تحان كوي صوت يارسي ويصعد يارسي بيسقوا كنتي إسقانا نجا قاضي تحان كوي معمولي لكن عدة واحد مصماص وقسنا وشاقني دواء يسقوها isagu baan imtixaanka naga qaadi anaga dadkana ay halkaan geeyo imtixaanka ka qaaday waa talabaade wuxuu nagu eedeeyay waa nijaasisan shaqo qaran nimankan waa nijaas buuri waxa nijaaseen shaqo qaran horta nijaas waxa la yiraahdo waa la yaqaanaa nijaasi waa tasuuliyaasha buuxisay annaguna nijaas ma nihin shaqo qaranna wax nijaasowda ma aha halkan ku nijaas aanu ku annagu nijaas aan ku ahayna inuu isagu cadeeyo ayaan uga fadhinaa maadaama uu mas'uulka dhamaa agaasimaha barnaamijka shaqo qaran ahaa inuu ardaydiisii amba dhalinyaradii uu maamulayay uu ku tilmaamo nijaas yiraahdo waa nijaas eragaas horta waa naga degwaayay kama aanan filin inuu yiraahdo waa nijaas horta run ahaantii barnaamijka shaqo qaran wuxuu ahaa barnaamijyadii hirgalay ee Soomaaliland ku faanisay run ahaantii anaguna ku faanaynaa waxa weey barnaamij aad u qurux badan waa barnaamij aan soo dhaweynay waa barnaamij aanu kaga cararaynay shaqada lagu helayo oday iyo suldaan iyo qabiil run ahaantii shaqada markaan soo galiyay anu waxaan kaga cararayay inaan shaqo qabiil helo oo shaqo qaran ma soo galay shaqo qaran waxa weeye waxa dhalinyarada shaqo qaran waa labeentii wadanka Soomaaliland waan jecelahay oo wadankan ku dhalan aabahay iyo wiilasha ka soo jeedaan barnaamijkan waxa weeye waxaan run ahaantii lagu soo eedeeyay war cad aan anagu sheegnay mana qurux badnayn la yiraahdo runta ha sheegina cadaaladana la soo barayna waan ku soconaynaa waxa jirta kale anagu ma nihin dadka dalka ku cadawa dad shaqo qaran ku cadawa manihin waxaan sheegaynaa runtii waxay cadad tahay run ahaantii waana lagu gafay waxaana lagu gafay in lagu sheego nijaasada inamada hore way iga sheegeen ay idin sheegeen waxa jirta horta Soomaaliland jacaylkeedu anaga mid naga go'ay maaha waxa weey wadankaygii
agaasimuhu markuu arrinkan ugu la dhaqaaqay muu noo sheegin markaan tababarka ku jirnay sharci u yaala shaqo qaran oo yaad sharciyada iyo intaas oo qodob baa raacaysaan kaasa raacaysaan nalama oran maalintii dhaweydna warqad buu soo dhigay wuxuu yiri waxay ku xadgudbeen sharciga shaqo qaran agaasim waxaan ku leenahay haddaad hore noogu sheegi lahayd sharciga qof kastaaba dad anagu sharciga u hanuunsan baan nahay run ahaantii anigu markaan Soomaaliland ahaantayda iyo qarannimadayda aan xataa saan u ixtiraamiyaan u jecelahay xataa kuma biirin anigu wasaaradda ciidanka qaranka Soomaaliland baan ku biiray maalintii optionka labada option ee la siinay barnaamijka uu nagu eedeeyay uu waa been abuur waanu haynaa cadeynteedii waana shay cad waanu soo bandhigaynaa garnaqsi baanu diyaar u nahay annaga waxaan cadaynin naga reeban wax cadceed duhurna nin sacab saaray ceebow isku soo wada duub oo 4 arday oo hore warbaahinta ula hadlay ayaa tilmaamay inay jiraan arday aan ka tirsanayn ardayda shaqo qaran oo imtixaanka u galay shirkadda Singapore Energy Axmed Daahir Nuux nasabka iyo sawir qaado sare Farxaan Gaxnuug telefishinka Star magaalada Hargeysa